maxay yihiin marxaladaha ay Soomaaliland ka gudubtay ee uu sheegay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro sanadii galbatay 2025 bishii December 26 Soomaaliland waxa ay furtay albaab cusub iyadoo ka gudubtay caqabado waaweyn oo hortaagnaa in ka badan 34 sanadood madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro oo warbaahinta reer galbeedka waraysi siiyay ayaa sheegay in hal qodob uu hadda la bartilmaameedsanayo haddaba maxay yihiin arrimaha ay Soomaaliland ku guuleysatay iyo qodobka si gaar ah loo bidhaansanaya warbixinteenna ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi Soomaaliland ayaa noqotay qaran ku naaloonaya aqoonsi caalami ah 26 bishii December ee sanadkii galbaday ee 2025 iyadoo soo afjartay caqabado horyeelay in ka badan 34 sanadood waxaana koow ka ahaa culeysyada ay u soo dhabar adeegeen shacabka Soomaaliland inaanay haysanin aqoonsi caalami ah iyo in cunaqabatayno isdaba jooga kala kulmayeen Soomaaliya oo ku muransan madax banaanida Soomaaliland muddadaasi 34 sanadood ah madaxweynihii ugu horeeyay ee soo afmeeray caqabadihii ugu tirada badnaa ayaa noqday Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo ku guuleystay dalkii ugu horeeyay inuu aqoonsado Jamhuuriyadda Soomaaliland dadaal xooggan oo la bixiyay diblomaasiyadda aamusan iyo bartilmaameedsiga aqoonsi caalami ah ayaa uu ku hirgalay hadafka dadka reer Soomaaliland ay muddadaasi u soo dhabar adeegayeen iyadoo mar kale madaxweynaha iyo diblomaasiyiinta Soomaaliland ay doonayaan dadaalkaasi inay si laban Soomaaliland sidii ay u heli lahayd dalal kale oo tiro badan oo ogolaada madax banaanideeda iyo qarannimadeeda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaana waxa uu sheegay in Soomaaliland soo xidhay shuruudihii ugu waaweynaa oo ahaa nabadgelyada iyo xasiloonida dhismaha dawladnimada iyo qaran ay dadkiisu ku kalsoon yihiin oo geeska Afrika ku yaala sida oo kalena ku naaloonaya dimuqraadiyad xasilooni iyo nabadgelyo waxaana ay ka soo faraxalatay Soomaaliland diblomaasiyad awood badan oo aan ka jirin dalalka deriska la ah dawladnimo ay shacabkeedu ku kalsoon yihiin oo ay wada ciidan u yihiin sida oo kalena ilaashanayaan goob muhiim ah oo ay ku taalo iyo xasilooni lagu kalsoonaan karo oo ay dadka reer Soomaaliland sameeyeen muddadaasi 34 sanadood iyo dheeraadka ah madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro ayaa sheegay diblomaasiyiinta Soomaaliland inay haata bartilmaameedsanayaan sidii ay u heli lahaayeen wadamo tiro badan oo Soomaaliland aqoonsada maadaama ay dalkii ugu horeeyay ku guuleysteen waxaana socda dadaal xooggan oo la doonayo ilaa 5 dal oo wada socda inay hal mar Soomaaliland ku aqoonsadaan kuwaasi oo ay taageero diblomaasiyadeed oo xooggan ku bixinayaan saaxiibada Soomaaliland ee dhinaca arrimaha dibadda oo ay dawladda Israa'iil horkacayso iyo dawladda Imaaraadka Carabta madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaana waraysigiisa waxa uu daboolka kaga rogay in ay awoodooda oo dhan isugu geeyeen diblomaasiyiinta Soomaaliland ee uu isagu horkacaya sidii ay Soomaaliland u heli lahayd dalal kale oo tiro badan oo aqoonsada